madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa asaga iyo waliba wasaaradda cadaaladda ee dalkani waxa ay riixayaan in ku dhawaad 400 oo qof oo dad ah oo horey u qaata dhalashada Mareykanka isla markaasina wadankan aan ku dhalanin ay haatan doonayaan in dhalashadaasi dib lagala noqdo. Dadkani maxay yihiin? Soomaali ma ku jirtaa? hase yeeshee dhinaca kaleeto sharcigu ma u ogolaanaya madaxweyne Donald Trump in uu sidaasi sameeyo. waxa arrinkaasi aan ka wareysan doonaa garyaqaan Amiin Haaruun oo degan gobolka Minnesota isla markaasina muddo ku soo jiray keesaska la xiriira arrimaha immigrationka oo Soomaali fara badani ay macaamiil ugu yihiin. soo dhawow bal Amiin Haaruun waa aroor hore labadeena dhinacba iga waran arrintan sida ay u socoto haatan ee wasaaradda cadaaladda iyo Donald Trump ay doonayaan. صباح wanaagsan sahar waad maasan tahay waan dhawahay waa maaragtay arrintan arrin cusub ma aha denaturalization ama in qof muwaadin ahaa oo dalkan sharcigiisa qaatay lagala noqdo ma cusba waa process weligii jiray xukuumaddanina maaragtay sharci cusub lamay imaanin dabcan waxay ka sheegtay idaacadaha inay dardar gelin doonto halka 400 qof hadii la sheegay xataa 400 qof wax dad yar weeye sanadkiiba kumanaan qof ayaa sharciga qaata malaayiin kale ayaa ku qaatay sharciga muwaadinimada iyagoon ku dhalanay dalkan Mareykanka si waxa loo yaqaano naturalizationka marka waxaan isleeyahay waa process jiray oo weligiiba jiray wasaaradda cadaaladdu qofkii loo garto ama ay ku soo baxdo sharciga markii la siiyay kadib in uu ku qaatay sharciga qalad wax uu qariyay oo muhiim ahaa ama dambiye uu galay in loogala noqdo way dhacdaa ma badno oo macnaha aad ma badnayn laakiin mar walba sharci jiray ayuu ahaa xukuumad walbana ugu yaraan waxbaa dhici jiray intuu la ekaadaba laakiin waxaad moodaa xukuumaddan xogaa inay hadda maadaama ajendadeedu qayb weyn ka yahay arrimaha soo galootiga iyo maaragtay yareynta qaxootiga in ay arrintani arrimo siyaasad uga faa'iideysanayaan laakiin wax cusub maaha wax xukuumadda ku xiran maaha wax inuu maxkamad soo maro baahan waxaa jirto in dawladdan warbaahinta sida u dhigayso lagu yaqaano ama lagu bartay in ay si weyn uga soo horjeedo dadyooga soo galootiga ah taasina ay sabab u tahay in si weyn loo bumbuuninayo arrintan laga yaabee in maaragtay hore u jiri jirtay tiradada oo dambiye gale in hore looga qaadi jiro sharciyada balse haatan beegsi gaara oo dadyooga soo galootiga ayaa madaxweyne Donald Trump dawladdiisa loo tirinaya sidoo warbaahintu ay leedahay arrintaasi ma ku lug leedahay mase sidaad leedahayba waa wixii hore loo yaqaanay in dawladdu ay dabagal ku samayso dadka qaarkood iyadoo arrintu sharci hore u jiray tahay oo hore u soo jirtay laakiin haddana xukuumaddu fulinayay leedahay xukuumadda marka Donald Trump waxay ka dhigatay arrimaha muhiimka hortabiska leh in arrimaha soo galootiga muhiimad gaar la siiyo in dadka soo galootiga si loo yareeyo xadka la xiro in kuwii sharciyada dalbaday ee dalka gudihiisa joogay laga daahiyo haddana in maaragtay ay olole hor la qaadaan oo lagu beegsanayo shakhsiyaad lagu tuhunsan yahay sharciga inay qalad ku qaateen wax macnaha waxay ka mid tahay uun qorshihii siyaasadeed ee xukuumaddan ay ku socotay laakiin maxaan isleeyahay haddiiba wax sahlan ma aha in qofka muwaadinka sharciga lagala noqdo waxaa jira sharci baa jira waa in ay wasaaradda cadaaladdu ay horgeysaa maxkamad qofkan aad soo jeedisaa waa in qaadi ka madax bannaan xukuumadda oo maaragtay laanta macnaha maxkamadaha ka tirsan ay garmaqal u samaysaa waa in qofka la siiyaa fursad uu isku difaaco oo qareen ku qabsado oo eedeymaha kaga hortago waa in si maaragtay unequivocal ah ama maaragtay si aad loogu qancayo heer sare ah in uu u soo cadaysato dawladdu qofkani in uu sharciga ku qaatay qalad ama uu galay dembiyo haddii uu sheegi lahaa oo caddayn lahaa intii uusan qaadanin sharcigan la siiyeen ama dembiye waaweyn oo waddanka ka dhan ah u galay marka arrin sahla ma aha laakiin xukuumaddu way qaadi kartaa olole noocaan oo kale ah oo shakhsiyaad la tuhunsan yahay ama kuwa markii hore ay xukuumadii hore u arkayeen inaysan gaarsiisnayn tuhunkooda heer maxkamadda soo taago inay ku dhiiradaan waa laga yaabaa waa tahay Soomaali ma ku jirtaa dadkaasi ayay kula tahay gobolka aad joogtid gaar ahaan ee Minnesota dabcan way ku jirtaa Soomaali fara badan waxaa jirta sharcigan inta badan waxay ku qaateen dad badan oo Soomaali waxay ku qaataan sharciga soo galootiga kadib markii ay yimaadaan waddankan muddo dheer ay joogaan waxay qaataan citizenshipka ama waddankan muwaadinimadiisa ay qaataan dadkaas
soo galay unbay ka mid yihiin qaarkood waxaa laga yaabaa in lagu soo eedeeyo in maaragtay ay sharci ku qaateen si aan munaasab ahayn ama ay qariyeen waxyaalo haddii ay sheegi lahaayeen inta aysan qaadanin sharcigaba aan la siiyeen way dhacdaa ama marka qaarkood inaan aragno shakhsiyaad hay-adda USCIS ama hay-addan u xilsaaran bixinta shuruucdaas in ay si dadban ugu soo eedeyso tiraahdo kuma siin karno sharcigii sababtoo ah waxyaalahan aad hore u qarisay oo waddanka kusoo gashay haddaan ogaan lahayn maad soo gashay waddankan iyo waxyaalo lamid a marka waa dabcan waa suurtagal inay ku jiraan laakiin hay-adahan dawligii saasoo kale ma sheegaan dadka siday u kala qaybsan yihiin dembiyadan lagu soo oogayo waayo qof waliba waxaa loola dhaqmayaa inuu yahay shaksi wax ku kooban goonidiisa ku ah laakiin de waan ognahay madaxweynahan iyo xukuumaddani si toos waxay isaga beegsadaan shacabka soomaaliyeed ee ku nool dalka maraykanka marka lama yaabeen haddii ay yidhahdaan haddana minnesota ka bilaabaynaa sidii waayihii hore ay ka sameeyeen inagoo og in minnesota aysan ugu soo galooti badnayn xadna aysan la lahayn waddamada dariska waa tahay dhinaca kaleto waxaa jirta in la leeyahay dadyoogi la siin lahaa sharciyada ee aan maraykanka horey u ahayn laakiin hadda neutralizationka lagu siin lahaa processkiisa baa dib loo dhigayaa maadaama la ogyahay dadka soo galootiga inta badan inay favor u yihiin ama ay u janjeeraan dhinaca dimuqraadiga taasi ma dhici kartaa sharciyanna maxay ka dhigan tahay runtii waan aragnaa in maaragtay daahitaan fara badan jiro shaqaalihii howlahan qaban jiray oo maaragtay muddada dheer kasoo shaqaynayay oo waxa loo yaqaano career civil servants in la bedelayo oo maaragtay iyagii la canaananayo qaar badani ay shaqadii ka tagayaan markii ay la yaabaan siday wax u socdaan markii aan tagno ballamaha dadka lagaga qaadayo waraysiga qaar badan waxay kugu xanqarsanayaan in aysan maaragtay la dhacsaneen qaabka wax u socdaan oo aysan sharciga waafaqsanayn 20 sano 30 sano qaar jooga ku dhahay weligeen tan kale ma arag marka xukuumaddani dabcan waxay wadaa inay daahiso inay dib u dhigto waxay uga dan leedahayba laakiin waxaad moodaa taasi inaysan sharcigii waxba ka bedeli karin sharcigan waxaa meel mariyey oo ansixiyey oo soo saaray golaha koongareeska wuxuu u baahan yahay in koongareesku ama maaragtay baarlamaanku ka fadhiisto wax ka bedelo laakiin xukuumaddu iyadu fulin bas ay ku leedahay waxaana ka jira isjiijiid iyo maaragtay in loo haysto xukuumadda lafteeda in ay ka gaabinayso shuruucdii baarlamaanku soo saaray inay fuliso oo iyada lafteeda lagu haysto laakiin waxay sii jirtaa xukuumadduba waa muddo kooban isbedelaa imaan kara maaragtay laakiin waxaa cad in madaxweynaha hadda xilka haya iyo xukuumaddiisu ay ku eedayaan dadka soo galootiya inta badan inay u xaglinayaan ama u janjeeraan dhinaca dimuqraadiga iyo xisbiga kasoo horjeeda taasna waxaa dabcan laga yaabaa inay gaabiskooda ku timid ee aysan ahayn dadka soo galootiga dhib ay keeneen keesaskii la xiriiray ugu dambeyntii arrimaha dadka weydiista waddankan magangelyadoonka ah dhallinyarada darbikaboodka la yiraahdo badi ee xaggiina ka jiray qaar badan oo kamid a caqabado fara badan ayaa haystay sidee baa hadda maaragtay u jiraan ama aysan u jirinba haddaan dhinaca kaleta dhaho in dadkaasi la siiyo ogolaanshaha inay waddankan joogaan oo ku noolaadaan oo magangelyo loo ogolaado runtii isbedel fara badan ayaa ka jira arrimaha soo galootiga gaar ahaan dadka Soomaaliyeed ee magangelya doonka taasina inta badan waxay ku salaysan tahay siyaasadda dalka Mareykanka iyo siday u aragto soo galootiga iyo waxa ka jira waddankii iyo Afrika waxa ka jira labadaasba ayaa la isku dhigayaa waxyaalaha aadka u saameeyay waxa kamid ah amaan darrada ka jirta geeska Afrika oo waliba gaar ahaan arrimaha la xiriirta argagixisada oo shaki weyn abuurtay qofkii ka yimaada bariga Afrika in la yiraahdo hadiiba uu yimaado waddankan ay shaki hay'adaha ammaanka ka qabaan oo dawladdu ka qabto waxa intaas dheer xukuumadda ama dalka Mareykanka oo runtii dadka soo galootiga ah u maareeya sida maaragtay hantida maaragtay dabiiciga oo kale marka marna way soo daayaan markay u baahan yihiin markii aan ay u arkaan inay soo bateen dadkii soo galootigana waa la yareeyaa marka xukuumadda hadda waqti waxaa lagu jiraa ay yareyn fara badan socoto oo xataa xisbiga dimuqraadiga kasoo horjeeday inkastoo aysan ku dhaqaaqin waqtigii Biden haddana aad dareemaysay in ay wada garwaaqsan yihiin in soo galootigu waayahan dambe aad u batay in la xakameeyana ay mudan tahay marka taasi waxay saamaysay dadka soo galayay oo wixii shuruudihii horey loogu siin jiray sharciga oo ku filaan jiray qofka magangeliyo doon inuu ku dalbado magangeliyo in hadda ay leeyihiin kuma filla marka xukuumaddana kumaba sii jirto oo iyadu si gooni ah waxay u bartilmaameedsatay dadka ka soo galay bariga Afrika gaar ahaan Soomaalida iyagoo leh maaragtay waa in si degdeg ah ballamo loogu qabtaa muddo koobanna go'aan looga soo saaraa
halkii sanado iyo sanado la sugi jiray ballamo in la helo hadda waxaad moodaa in muddo kooban ay ku soo ururinayaan dhammaan dadkii soo galay in ballamo loo qabto dabcan way jiraan dad yar oo helay laakiin diidmada aad bay u fara badan tahay aadna way u heer sarreysaa dadka soo galaya la siinayaa waayo haddaad iga ogolaato hal su-aalaan jeclaan lahaa inaan ku darsado xaaladihii ugu dambeeyey ee ICE gobolkiina ka howlgelaysa Minnesota hadda waa sidee ma ka tageen gobolkii ma joogaan dadkii weli ma laqa qabtaa haddaad bal daawadayaashii aniga dib noo yara xasuusiso arrintaasi waa jeclaan lahaa howlgalkii dowladda ugu magac dartay Metro Surge waa istaagay laakiin ICE marka horena waa joogtay haddana waa joogtaa oo de ICE waa hay'ad ka tirsan fulinta dalka Mareykanka markastana xafiisay meeshan ku leedahay way ka shaqeysaa laakiin howlgalkii balaarnaa ee safka balaaran ku socday dadkan afka duuban ay hogaaminayeen ka imaanaya gobolada kale qofka muwaadinka ah iyo kaan muwaadinka ahayn baa jidka markuu maraya la iska istaajinayay wuu dhamaaday kaas waxaa moodaa isbedel bay ku sameeyeen taa bedelkeeda waxay bilaabeen in dadkii ay u soo geliyaan maxkamado waxa ay garyaqaanada arrimaha socdaalka ay ku naanayseen the Somali Rocket Docket waxaad moodaa in ay rabaan muddo kooban in ay ku soo dhajiyaan dhammaan garmaqalada dadka Soomaaliyeed qaadiyo aan gobolkan ka shaqayn jirin oo meelo kale ka yimid oo lagu soo xirayo qaab maaragtay virtual ah inay soo gelinayaan diidmo fara badanna ay bixinayaan taas ayaa jirta laakiin weli looyarada iyo dadka laftooda waxay isticmaalayaan shuruucda iyo gaar ahaanna mataqaanaa habraacyada maxkamadda marka waxaa jira howl badan ayaa socota laakiin xukuumaddu waxay isku dayeysaa in ay dad badan waddankan ay sharciga u diido oo ay ka saarto runtii aad baan kugu mahad celinayaa garyaqaan amiin haaruun waqtigaaga iyo maaragtay inaad arrintan muhiimka ah aad ila falanqayso adaa mudan walaal kaasi waxa uu ahaa amiin haaruun garyaqaan sharciyaqaan degan magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota isla markaasina kamid ah halkaasi sharciyaqaanada Soomaalida farakutiriska ah ee arrimaha ka hadla socdaalka ama ka shaqeeyo iyo wixii la halmaala waxa aan ku wareysanaynay dawladda Mareykanka oo doonaysa ku dhawaad 400 oo qof inay sharciyada dhalasho ee waddankan Mareykanka ay kala noqoto dadyo soo galooti ah oo aanan ku dhalanin asal ahaan dalkan tan iyo kulanti dambe nabadgelyo